wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in caawa fiidkii iska horimaad uu dhex maray ciidamo ka kala tirsan Puntland. Wararku waxay intaa ku darayaan in lagu weeraray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali xil uu ku guda jiray Afurka. Sida wararku sheegayaan, weerarka waxa uu si gaar ah uga dhacay beer uu gobolka Mudug ku leeyahay nabadoonka lagu magacaabo Yaasiin Cabdi Samed oo ahaa shaqsiga Afurka u sameeyay wasiirka iyo qoyskiisa. Wararka hordhaca ah ee la helayo ayaa sheegaya in weerarkani uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh, walow wasiirku uu ka badbaaday. Haddana waxaa la sheegay inuu goobta ku geeriyooday mid ka mid ah ilaalada wasiirka, halka nabadoon Yaasiinna uu dhaawac soo gaaray. Weerarka waxaa la sheegay inay geysteen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland, inkastoo aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa. Haddana waxaa la sheegayaa inuu salka ku hayo khilaafka dhinacyada kala duwan u dhaxeeya xukuumadda madaxweyne Dani iyo ismada Puntland. Si kastaba, nabadoonka Yaasiin ayaa dhowaan u soo jeediyay madaxweyne Saciid Dani inuu wareejiyo xilka madaxweynenimada ee Puntland, maadaama federaalka isku sharaxay, iyadoo Dani uu haatan ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo ololihiisa uu ka wato. Tobanaan kun oo dhalinyaro ah ayaa maalinkii labaad ku soo ururay iridda hore ee safaaradda Ruushka uu ku leeyahay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, kadib markii uu baahay war sheegaya in la qorayo askar ka qayb qaadata dagaalka Ukraine. Si kastaba haatee, afhayeenka safaaradda Maria Sherkumakin ayaa sheegtay inaysan jirin askar la qorayo oo laga qaadayo Itoobiya, laakiin ay dadka isku soo baxay ay garab istaag u muujiyeen Ruushka. Waxaa noo yimaada dad badan oo na soo booqda si ay noogu sheegaan taageerada ay u hayaan Ruushka, ayay sheegtay BBC-da. Qaarkood waxay noo sheegeen in ay na caawinayaan si walba oo ay u awoodaan, laakiin ma nihin hay'ad askarta qorta, ayay intaasi ku dartay Jomnikin. Rag badan ayaa la arkayay iyagoo wata warqadahooda aqoonsiga. Mid ka mid ah dhalinyarada goobta yimid ayaa BBC-da u sheegay inuu doonayo in uu mushaar fiican ku helo askarnimada ama shaqo kale la siiyo. Sidoo kale, Ruushka waan jecelahay, ayuu yiri shaqsigaas. Sidoo kale, maanta waxaa la arkayay dhalinyaro kale iyagana aad u fara badan oo tuban gidaarka hore ee safaaradda. Waxay sheegeen inay maqleen in mushaar badan la bixinayo haddii la qaato. Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa soo baxay warar ka sheegayay in ciidamo ajnabi ah ay u kala safanayaan labada dhinac ee colaadda Ukraine. Ukraine ayaa u ogolaatay dagaalyahanada ajnabiga ah ee doonaya inay ciidamadeeda ka barbar dagaalamaan inay dalka soo galaan fiisa la'aan, taasoo fursad u noqotay Afrikaanka doonaya inay Yurub gaaraan oo inta badan ku adag tahay inay helaan fiisaha.